xoghayaha maaliyadda xusbiga mucaaridka wadani oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiska guud ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa ayaa eedeymo kulul u soo jeediyay xukuumadda galwadeenka uu ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo eedeymahaas oo iskugu jiray xadhigga lagula kacay wariye Cabdimaalik Coldon iyo heshiiska xukuumadda Soomaaliland ay la saxeexatay shirkad DP World sidoo kale waxa uu xoghayaha maaliyadda xusbiga mucaaridka wadani uu sheegay inay xukuumadda Soomaaliland ay ka gaabisay abaarta baasan ee ka jirta guud ahaan Soomaaliland waxaana hadaladiisi kamid ahaa sida tan qaab maxaa raday hebel baa meesha ku soo baxay baad ku farxday xukuumaddu aynu ognahay dhaliilada dul hoganaya oo heshiisyada ay gashay cidda ay u gashay iyo cidda u saxeexday iyo cidda hawsha hormuud ka ahayd in xukuumadda xabar ka jirta ay tahay aynu isla ogno dhamaanteen aynu ka wada dhigsanay in qofka arrimaha noocaas oo kale lagu xidho marka saxaafadda runtii ka difaaci maayo wixii eedeya dhaliila ay leedahay xukuumaddu iyada laga rabtaa sharcigii kala xadeyn lahaa iyaga iyo saxaafadda iyadu arinta iyada ah soo bandhigto oo soo gudbiso waana lagu la shaqeynaya laakiin inay arintu ku socoto wareegto lagu xidho joornaalka qof doonistiina inay ku socoto oo marka ay doonaan qofkay doonaan ay xiri karaan qofkay doonaan ay sii deyn karaan oo oran karaan waxa lagu sii daayay saamaxaad qofku waa inuu yeesho xuquuq u yeesha haddii uu dambi galayna loo maraa sifaa sharciga loo maraa waad ogeydeen dhawaanaha kan xubnihii saxaafadda la xiray waad ogeydeen kuwa hadda u xidhan waad ogtihiin arinta iyada ana waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay joojiso saxaafaddu baarkan oo dhaliilaysa xaq bayna u leedahay inay dhalisho waxa la wixii dhaliil aanu leenahayna waanu qaadanaynaa kada arinta maxana saldhiga waad ogeydeen dikadii wixii inaga soo noqday buuqi ka dhacay waad ogeydeen marka koowaad ma jirto ilaa iyo haddeerto heshiis qoraal ah oo soo gaadhay hay'adihii dawladda ee markii hore la lahaa waa memorandum of understanding ama MOU oo heshiisyada waa la keeni karaa heshiis yimi oo dambe oo ama saldhiga ama dekada ma jiraan marka koowaad marka labaad ma jirto wax maalgelin oo muuqato aynu aragnay oo dekadeeni ee la gelinayo marka saddexaad shaqaalihii iyo ballanqaadadii la sameeyay shaqaaluhu sidoodii noqon doonaan waad ogeydeen idinka tabinayay dhibaatadii ka dhacday iyo shaqaalihii qaabkii loola dhaqmay oo ay la gacan ka hadal ay arintii gaadhay waxaad kala ogtiin oo hadda de ruumarska dadku ku jira ay kamid ah in arintii saldhigu ay nabadgelyo gacan biyoodkeenan oo ahaa runtii de nabadgelyo ahaa ay dhibaato ku soo kordhisay oo ay dadka qaarkii eedda saarayaan arintaas saldhigu inay tahay inkastoo aynaan caddayn u haynin aynaan caddayn u hayna ku dhiirashadu runtii aanay ficnaan laakiin qayb bay ka noqon karaysaa iyadana oo ogtiin dad Soomaaliya oo leh Soomaaliland u badan in lagu waxyeelay xukuumadda runtii roolkii iyo doorkii lahayd ayaan ka qaadan arinta iyada ah runtii waxyaabaha kale aad u dhaliilayna waxa kamid ah dekada maalgelinteeda dhinaca service-kii ay qaadi jirtay dawladdu markay ugu yaraato bishii waxa ka soo bixi jirtay lacagta 2 milyan iyo bar ilaa 9 milyan oo dollar ka soo bixi jirtay marka sanadka la isu geeyo 108 milyan maalgelinta layna leeyahay dekada la gelinayo waa 432 milyan marka waa matter of 4 sanadood bay ku soo baxaysaa lacagta loo baahan yahay in lagu maalgeliyo dekada marka si maarta runtii cilmiga aynu u soo bandhigno marka xukuumaddu waa inay caddaysaa dakhligan maanta lagu wareejiyay shirkaddan DP World ee ah inay qaado iyo service-kii oo waliba iyo haday doonto si alla sida ay doonto markay doonto ay kordhin karto waa lacag service oo golayaasha qaranka maraynin wax muuqdo ay dekadii ka qabanayso oo dhismeen aanay jirin arinta iyada aan runtii waxaanu jecelahay in xukuumaddu warcad ka soo saarto aad iyo aad baad u mahadsan